السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي هذا السلام عيد ونكسن مناسبة عيد أوجد وحنا أنا مقال كان إذن كله وداعو شن شيء أو قفل بو أنا جميدة أي تاينو آدو إلى عشرة شنتا شيء وشن أريو كلا دوام واي مركب مدل بحرف كوهر يلا جسوا قاطي ما كل شو جين إنجليش هذا وحلا آخرية فيما الله آخرية أريو أما حرف كوهر تي بحيث تاجن تايم وطبعا وقتي waxaan ognahay inuu yahay uu kamid yahay shayada ugu qaalisan qofka bini'aadamka uu haysto taasna waxa sabab ugu ah dad yooga hadda adduunka lagu tiriinay dad guuleystay maaragtay dad wax baratay mutacallimiina ama han noqdo cilmiga maadiga han noqdo midka diiniga han noqdo ama qof nolosha horumarka gaar dhan dhaqaale dhan teknolojiyad iyo nooc rabtaba dadkaas dabcan horumarkaas ay gaareen ma ahan wax inta habeenkii ku soxdeen subaxii ay la soo kaceen ma waa waqtiga dhamaanteena ka wada samanahay 24 saacadood ee waxay uga faa'iideysan sida loogu talagalay marka xagaas waxa ka dareemi kartaa ahmiyadda waqtiga uu leeyahay marka waqtiga ilaashan qodobka labaad oo xarafka labaad theme marka la akhriyo waa HY HY waxay u taagan tahay waa health ama caafimaadka dabcan caafimaadka wuxuu ka mid yahay shayga ugu horeeya ee ugu muhiimsan qofka bini'aadamka uu haysto oo qof caafimaadkiisa uu u dhameystiran yahay ayaa ka fikiri kara horumar iyo nolosha inteeda kala batigsan kara marka caafimaadka ah haysana dabcan maxay ilaahay si ilaahay uga xamdinayna marka qof walba waxa laga rabaa sidoo caafimaadkiisa ku maintain gareyn lahayn oo ka fikiro waa shay qaali ah caafimaadka ereyga saddexaad ee ku xiga waa xarafka idaas waxay u taagan tahay energy u taagan tahay waa tabarta iyo awoodda iyo xoogga aan maanta haysano badi dadka ugama faa'iideysan sida loogu talagalay waxa laga yaabaa in xoogooda iyo aqligooda iyo awoodooda ay uga baxdo meelo aan maaragtay nacfi mid diineed iyo mid maaragtay adduunyo oo mid aakhirab aan lahayn ay ku bixiyaan marka waxa laga rabaa waxa waa in qof walba uu energy-giisa tabarta uu hayo xoogga uu ku bixiyo dadka ay tahay maaragtay inuu ku qarash gareeyo xooggiisa iyo waxyaabaha nacfiga ay ka soo galaan qodobka afraad waa M waaye xarafka M oo u taagan money dabcan ama lacag dabcan waxaad ognahay lacagta waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka mid tahay qof walba naga mid ah uu cararayo qaarkeena 30 bari suga maaragtay inay lacag helaan oo hal maaragtay company ama billion markaas ku xareysan 30 bari saacadooda ugu badan ay ku qaataan qaar kale oo naga mid ah xoog iyo xamaal ku keenan lacagta haddana saas oo ay tahay waxay ku baxdaa oo lagu qarash gareeyaa sida ugu fudud ku baxdaa marka maxaa laga rabaa marka inaad lacagtaadii si wisely ah aad u manage gareyso u qarash gareysaa muhiim oo aysan kaaga bixin waxyaabo fara badan oo aan macnana kugu lahayn adigana in return aadan waxba ka faa'iideyn adoo laga yaabo inaad 30 bari shaqooyin adag oo maalinkii 8 saacadood 7 saacadood soo shaqeynayso ama xoog iyo xamaal ku keenayso xarafka u dambeeya waa ida waxay u taagan tahay emotions ama dareenka qofka maxaa laga rabaa marka waa inaad dareenkaaga xakameyn karto nooc rab ha noqdo mid farxadeed dabcan ilaahay aan uga mahadinaynaa qof walba wuxuu leeyahay dareen uu leeyahay oo kaga falceliyo waxyaabaha hareerihiisa ka dhacaya xilliyada faraxsan tahay emotionkaaga si aad uga falcelisaa markaad xanaaqsan tahay si aad uga falcelisaa markaad murugaysan tahay si aad uga falcelisaa marka qof walba waxa laga rabaa marka inuu emotionkiisa uu control oo xakameeyo tusaale ahaan goobaha shaqada ay joogto kale waxaa laga yaabaa inaad isqalaaftaan ama isqabataan dadka kula shaqeynaya ee shaqo wadaagta tiin dabcan emotionkaaga waa isbedelaa emotionkaas marka inta aad xakameyn karto inaad xakameyso tilaabooyinka ugu muhiimsan oo aad xal ku gaari kartana aad ku xaliso waxaa kaloo muhiim ah marka problemkii shaqada ka soo qabsaday aad xaafadda la tagin waa aad maaragtay cidii iyo qaraabadii iyo carruurtii aad kala dul dhicin sidaas lamida farxadaha lamida oo xiriirada farxadda naftirkeeda emotionka ka dhalana waxa laga rabaa in alaalsan laga rabaa waayadan dab waxa soo batay dadkii emotionkoodii waxay awalka hor dadka la wadaagi jiray hadda waxa la keenay social media la keenay qof walba farxadiisa murugtiisa dhibkiisa social media uu keenaa ana runtii maaragtay waxyaabo aad looga fiican yahay sababtoo ah baraha bulshada ma ahan meel maaragtay lagu garnaqo maxay qofka iyo qofka isaystaan ma ahan bal iska badaay macluumaadkaaga informationkaaga la rabay private ku ahaadana aad dadka la wadaagaysaa marka emotionka qofkana inuu control aad u muhiimsan marka shantaas ereyaan rabnaa isla wadaagno waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iideen aad ayaan salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh